soo dhawaada warar waaweyn oo ka soo baxaya ugu dambeyn xalaytoole Iiraaniyiintu iyo waliba Mareykanka oo heshiiskii wada saxiixday iyo waliba bayaan cajiib oo Iiraaniyiintu ay ka soo saareen haddaba maxaa lagu heshiiyey Iiraan soo bandhigtay qodobo aan caadi ahayn oo ku jira heshiiska la tilmaamayo in Mareykanka iyo waliba Iiraaniyiintu ay gaareen barnaamijkan ayaan kugu hayaa haddaan ku yiraahdo ka waran madaxweynihii dalka Mareykanka ayaa isagu ammaanaya kooxaha wax iska caabinta gaar ahaan kooxaha ka dagaalama diida Gaza isla markaana uu leeyahay kuwaasi tan iyo dhalashadoodu iyagu waxay wateen qoray iyo hub markaasi sheekooyin cajiib ayaan ku hayaa isla markaana aan kugu soo gudbin doonaa qodobadaas iyo kuwo kale xiiso badan ayaa tabinteeda kaga bogan doontaan sidoo kale sheekadii Suuriya war ayaan idinkaga haynaa labadii nin ee Trump iyo Netanyahu oo qooti isula jiray isla markaana sheeko aan caadi ahayn ayaan kaaga soo ururiyay daawade soo dhawaada meel kasta oo aad joogtaan subax wanaagsan maanta waa aroornimo khamiisa taariikhdu ay ku beegan tahay 18 bisha Juun sanadka 2026 ku soo dhawaada barnaamijkan sino sheer garaya saaxiibayaal aad baad mahadsantihiin aanu ku bilownay saaxiibayaal xalay waxaa faahfaahin laga bixiyay ugu dambeyn heshiiska Mareykanka iyo waliba dowladda waddankaasi Iiraan ay wada gaareen qodobada Iiraan ay soo bandhigtay waan ku tagi doonaa laakiin Iiraan xalay si rasmi ah ayay ugu dhawaaqdeen la saxiixay heshiiskii safgaradka ee u dhaxeeyay Mareykanka iyo waliba dowladda waddankaasi Iiraan isla markaana heshiiskaasi hadda u dhaqan galay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi Iiraan ninka la yiraahdo Ismaaciil Baqaayi ayaa sheegay heshiiskan in lagu saxiixay qaab elektaroonig ah isla markaana ay kala saxiixdeen madaxda labada dal طبعا عندك كسيحان wax badan baa looga doonaa maalimada jimcada ayaana wax walba oo marka laga soo bandhigi doonaa dheeraada waliba baqay wuxuu sheegay kulanka jimcaha ee ka dhici doona Switzerland طبعا Mareykanka lafsidiisu waxa la tilmaamayaa in isagu la kansalayo laakiin waa kulan daba socdo kulankan baa leeyahay heshiisku wuxuu dhigayaa si degdeg ah loo joojiyo dhammaan colaadda waxa lagu heshiiyay la soo afjaro xayiraadda maraakiibta ee Marinbiyoodka Hormuz Iiraan waxa loo ogolaanayaa dib inay u hesho lacagii iyo hantidii la xayiray Iiraan waxa sidoo kale loo iyaduna ballan qaaday iyadu in dib markaa ay soo celin doonto maraakiibta gacanka Hormuz iyo waliba gacanka Carbeed iyo waliba Oman iyo ka hor dagaalka sidoo ahaa ayaa markaasi isagu ahaan doonaa madaxa wada xaajoodka Iiraan Maxamed Baaqir Qalibaaf oo isaguna hadlay waxa uu sheegay dowladda waddankaasi Iiraan inuu ka go'an yahay mowqifkeeda inay ku adkaystaan isla markaana sinaba aysan uga labalabayn markaa dalkaasi Iiraan arrinta ku aadan heshiiska iyo waliba xaq ay u leeyihiin sidoo kale Maxamed Baaqir Qalibaaf wuxuu sheegay in lagu daray dhisidda sanduuq maalgashi oo qiimihiisu yahay 300 bilyan lacagtaas oo qayb ka mid ah loo adeegsan doono dib u dhiska iyo dayactirka kaabayaasha markaasi dagaalada ay saameeyeen sidoo kale waxa uu dhigayaa heshiiskan Marinbiyoodka Hormuz in la furo isla markaana la xaqiijiyo badqabka maraakiibta Qalibaaf ayaa sheegay Iiraan ay bilaabi doonto canshuur ay ka qaado maraakiibta isticmaalaysa markaasi Marinbiyoodka markay dhamaato muddada 60 maalmood ee laga dhaafay khidmadaha markaasi 60 maalmood khidmad ma qaadi doonto laakiin 60 maalmood kadib ayaa Iiraaniyiintu iyagu waxay la iman doonaan lacag khidmad oo kale loogu magac daray oo ujeedadu ay tahay in ugu dambeyn dhinacyadu ay isku fahmaan lacagtaas oo ah lacag adeeg markaa loogu adeegayo yani magacii baa laga bedelay haddii la yiri warqadan ma anfacayso oo canshuurnaad qaadaan magacii canshuur waan idinka daayay waxaan u bixinay adeeg yani Axmed haddaad diiday Xaaji Axmed baan ku leeyahay marka Maxamuud haddaad diiday aniga Xaaji Maxamuud baan ku leeyahay adiga haddaad diiday sheygaasi oo ku wanaajinaya saas bay marka Iiraaniyiintu iyagu ku marsadeen kaarkooda wal Trump tii ogeyd baa waxba lagu dhigay marka Iiraan marka waxay ogolaatay in la yareeyo kaydkeeda uraniumta la hodmiyay sidoo kale waxay ogolaatay in Washington waxay u arkaysaa arrin guul marka heshiisku waxa uu dhigayaa labada dhinac inay ka wada hadlaan habka loo maareynayo kaydka uraniumka Iiraan inta lagu guda jiro muddada wada xaajoodka waxa lagu heshiiyay sanduuq markaas caalami ah oo dib u dhis lagu sameynayo taasoo markaa la cadeeyay sheekada kale Iiraan maxay soo bandhigtay Iiraan 14 qodob waa soo bandhigtay xabad joojinta oo Lebanon ay ku jirto waxay soo bandhigtay madax banaanida labada dal yani faragelin aan lagu sameyn karin Iiraan waxay ka hadashay sidoo kale heshiisyada kama dambayska
qaadista xanibaadda iyo weliba ciidamada bariga dhexe gaar ahaan kuwa meelaha u dhow iiraan ee gacanka cumaan iyo imaaraadka iyo waa in maraykanka laga daadgureeya meeshaasi markaa ilaalinta ganacsiga ee marinka hormuus qorshaha 300 bilyan way sheegeen cunaqabatayntii saarneed oo dhan baa laga qaadayaa arrinta hubka nuclearku way ballan qaadeen ilaa hadda waxaa leeyahay ilaalinta kama dambays in lagu gaaro faa'iido weyn bay u noqon doontaa laakiin maraykanka ma isbedeli doonaa lama garanayo iyagu waxay yidhahdeen maraykan uu soo dhowow haddaad isku daydid adigu inaad isbedeshid annagu gantaalladeenu waa diyaar haddaad isku daydid in wax ka bedel arrintan aad ku samaysid ama maankaaga netanyahu isagu bedelo 3 saacadood ilaa 4 saacadood baan u baahannahay si marinbiyood مسؤولين عن كل مركز تاني وقت أنت مراكبت هذا يسوون أنا بوحن أودنا مركزي إن أنا بقولك على معناه وحكي تسنى إنسا إن عيادو وقت هذا كان إن أيوة مركز ديار مهم إن يشيس أي كلام لكن يشيس كمستقبل كواحد عدوان لما هو على غيابه إن يشيس وكبر برو لحظة كمال موت ولا هذا اللي بيقول جرا تاس وواحد وين كلا عضين دون تهدي لآذي ودنا بدر يهدي لآذي wada dagaal markaasi lixdanka cisho ama waxaa la dhihi karayaa dhinacyadu way isu soo nasanayaan oo midba midka kale isagoo soo almiiteeyey oo jir ahaan u diyaarsan oo qalabkiisii haysta mid walba seeftiisii soo afaystay ayuu isagu markaasi la soo shirtegi doonaa marxaladda marka lama garanayo sida xaalka uu noqon karo weliba sida ay markaa noqon karaan marka warkii ugu dambeeyey waxay leeyihiin wax badan baan ogaan doonaa dagaalka kadib marka 6 maalmood ay dhamaato marka iiraaniyiintuna warkaas bay ku adkeysanayaan waxay leeyihiin anagu lacagteena waan rabnaa waxaan ka tanaasuleyna ma jirto maraykanku wuxuu sheegay lacag inuusan bixinayn laakiin sanduuqyo maalgashi ay bixin doonaan yacni khaliijka carabta waa bixin doonta markaas lacagtaasi carabta waa bixin doonta marka wakaaladda wararka iyo faris iyo kulli reer iiraan waxay leeyihiin qodobada aanu hadda soo bandhignay ayaa ugu waaweyn kuwa la rabo in la fuliyo isla markaana maraykanka u dhaqan geliyo netanyahu ma awoodi doonaa marka inuu isagu heshiiskan fashiliyo ma la garanayo waqtigii waayuhu ayaa noo sheegi doona laakiin iiraan waxay sheegeen taageeridda iyo dhoofinta shidaalkeeda waa loo ogolaaday arrinta lubnaanna maba laga hadli karaba marka mushkiladdu weli waxbaa daboolan laakiin waan arki doonaa iiraan maxay samaysay mataqaana guddi baa la dhisi doonaa kormeeri doona heshiisyadan dabagalkiisa markaas heshiiska kama dambaysta ah xabadijinta marka la hirgeliyo waxaa la tegi doonaa qaramada midoobay halkaas baa lagu ansixin doonaa oo la dhihi doonaa heshiiskan wuxuu noqonayaa mid caalami ah kulley trump ma celinaya heshiis caalami iyo mid maxalli ah laakiin wuxuu noqon doonaa mid united nation security councilka la horgeeyo golaha ammaanka uu kasoo saaro go-aan waajib yeelaya tanina heshiisku wuxuu siinayaa sharciyad iyo aqoonsi caalami ah sidoo kale wuxuu ka dhigayaa dhinacyadu si rasmi ah inay u fuliyaan waajibadiisu waa logyahay maraykanka israel inaysan markaa qaramada midoobay u joojinayn laakiin sida hadda waxay ku socdaan hadday ku socdaan iiraan waxay ka doonaysaa keliya inay u hesho markaa sharciyad caalami ah taasoo siinaysa dagaalkeeda dambe inay iyagu markaasi noqdaan kuwa si toos ah marka u saameyn kara dagaalkana iyagu xulafo u heli kara sidoo kale dagaalkaasi waxay kaga maarmi doonaan dowlado kale oo maraykanku marka caawin lahaa ayaa ilaalinaya xeerarka caalamiga oo xitaa si kastoo in la jibiyo xeerarka caalamiga la isugu raaco waxaa leeyahay maraykanka xulafo badan ma helayo marba haddii taageero caalamiya uu samaysanna way ku adkaanaysaa keligii isagu dagaal inuu galo waayo dalka iiraan waxaanu ka hadlaynaa dad markaasi nus milyan dagaalyahanno iyo ciidamo baa loo baahanya si dowladdaasi looga hortago taasoo khatar weyn markaasi ku ah marka la ego maraykanka iyo weliba cid kasta isku daysa inay weerarto marka agshiis waxay leedahay dhinacyadu waxay saxiixeen heshiiskana waa dhaqangala waqtigan heshiisku waa bilowday markaa oo hadda dhaqangalkiisu ayaaba hadda toos u bilowday markaas iiraanna waa kan warkeedu waxay leedahay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda rasmi ayaa loo saxiixay labada madaxweyne baana saxiixay madaxweynaha dalka iiraan waa mascuud pezeshkian iyo madaxweynaha dalkaasi maraykanka donald trump yani ayato lama saxiixin madaxweynaha baa saxiixaya markaas laakiin golaha amniga qaranka la horgeeyey ee iiraan
iyagaa soo ogolaaday markaas waa la ogaan doonaa marka waxa dhaca sidoo kale maxamed baaqir qaalibaaf baa la yidhahdaa ninka waa guddoomiyaha baarlamaanka dalkaas iiraan wuxuu leeyahay heshiiska isfahamka wuxuu si cad u muujiyey xaqa aan u leenahay dhaqaale in aanu ka helno markaasi dhanka baribiyoodka hormayso yacni maraakiibta halkaasi maraysa dhaqaale ayaan ka qaadi doonaa ama jeclaada ama diida carab iyo maraykanow idinka idin taala markab kasta oo halkaas soo marayo lixdanka maalmood oo gudahood lacag lagama qaaday sababtoo heshiiskii baa socda laakiin lixdanka maalmood kadib waxaa leeyahay lacag baa la iska raba iiraan baa ladaa dadkan lixdanka maalmood gudihiisa laga yaaba inay iskidiso tiraahdo waxaas ma jiraan waanaad bixisaan lacag hadda waa in la bixiya marka heerkaas baa la kala maraya waxaa jirta sheeko aan caadi ahayn madaxweynaha dalka maraykanka donald trump iyo ninkii netanyahu qoorta bay isula jiraan waa la iskhilaafay maxaa la isku haystaa mataqaana yaa shaqo ka qabanaya xisbullah xisbullah meel bay saartay baarka bay ka garaacday markaa ciidankii halkaa la geeyey iyaguna waa la garaacay laakiin sidii la filayay waxaa la islahaa sharbaha lagu qaadan doonaa isla markaana bayruud ka suga israa'iil ma istaagi doonto tan iyo 4 bilood baan ka hadlaynaa tuulooyin hoose xadkaa bay markaa soo dagaalameen weliba ma haystaan way gelayaan dagaaleenaba halkaa kula kulmay markaas baa degaantigaa la iska dhigaya maxay samaynayaan baabi'in bay samaynayaan marka way duqeynayaan tuulooyinka dhulka la simayaan laakiin meelo ay qabsadeen waa adag tahay baa leeyahay marka aad bay markaa si fudud looguma saari karo dagaalyahanadii taa kadib maxaa dhashay marka madaxweynaha dalka maraykanka donald trump wuxuu yidhi walaalayaal netanyahu iyo dowladdaada waad ku fashilanteen koonfurta lubnaan shaqadaas nin kale baa ii qabanaya oo aad iyo aad khatar ugu hawshan ku fiican waana madaxweynaha dalka suuriya axmed sharac maalin hore wuxuu yidhi ninkaa meeshaan ageysta anaana markaa shaqada maamulo hadda wuxuu yidhi ninkii trump ahaa sharcu soo dhow shaqadaas inaad geshid dalka lubnaan aad shaqo ka qabatid baan doonaynaa shaqo inaad ka qabatid ayaan doonaynaa markaa waa og tahay keligii horta inta gala ma samayn karo sababtoo ah wadamada carabta uu dhaqaale ka doonaya ololo warbaahineed iyo ololo caalami oo carabta u samaysan waa doonaya labaduba iiraaniyiintu il gaara bay ku hayaan sababtoo ah iiraan xisbullah meel bay kaga soo baxday meel ay kaga tegaysana ma jirto waayo haddii ay xisbullah maanta ka tagto beritoor iyadaa loo imaanaya duruuf hadda ay ku jirto oo ay ka daciifsan tahay iiraan ma jirin dagaalka intuu ku socday qof maalintaasi ka tegi waayo xisbullah hadda miyuu ka tegayaa isagoo guulaysta ah oo marxalad wanaagsan ku jira oo dagaalkii ku guulaystay oo meel wanaagsan isagu maraya ma haddaba isagu go-aansanaya inuu ka tago markaa waxaa leeyahay waa iska adag tahay in taa ay dhacdo maxaa dhici doona marka xogihii ugu dambeeyey marka waxay sheegayaan in netanyahu lagu yiri trumpna uu ka dalbaday inuu ka soo baxo dalka lubnaan ama meeshiisa uu isagu joogo ciidamada suuriya ee uu leeyahay waxaa jira kooxo badan oo argagixiso dunida laga soo ururiyey ciidan hadda loo dhisay axmed sharac ayaa la rabaa in la geeyo gudaha dalkaasi lubnaan si looga taqalluso xisbullah isla markaana loo tirtiro dalkaas laakiin mushkiladda jirta halkaas waxay tahay dadka reer lubnaan way soo jeedaan tani waxay siinaysaa marka halkaas ay galaan kooxo argagixiso ah iyo weliba ciidankii dalka suuriya waayo ciidamada dalka suuriya ajaanib fara badan baa ku jirta 5,000 ilaa 6,000 baa la tilmaamaya kooxaha markaa ICE kuwo kale inay yihiin iyo ciidanka dowladdu waa gaar kooxahan kale ee argagixisanimada loo haysto ajaanibta ah kuma jiraan laakiin way caawinayaan oo marka la galayo gudaha dalka suuriya waa lagama maarmo 5,000 waa 5,000 oo mahaligiina bashar al-asad markaas jilbaa u laabtay aad u dhibada marka lagama maarmo marka keligood axmed sharac ciidankiisa keligii marka ma geli karo wuxuu u baahan yahay kuwa kalena marka halkaa la geeyey 5,000 oo ciidana guutada commandoska ee loogu talagalay special forceska xisbullah ay leedahay keligeed baa 5,000 iyadu marka see la yeelaya qatar baa halkaasi amad marka ma israa'iil baa hawada ka duqeyn doonta oo eventually axmed sharac baa la siin doonaa si xisbullah looga taqalluso lama garanayo erdogan oo aad iyo aad gacan saar ula leh dowladda waddankaasi suuriya oo hadda loo dhisay axmed sharac ma ogolaan doonaa axmed sharac ciidankiisa in gudaha markaa lubnaan la geeyo si isagu uga taqalluso xisbullah iyaduna lama garanayo wax badan baa saaran iiraan ma daawan doontaa inta xisbullah iyadu markaas la kala tuurayo oo la baabi'inayo hubka laga qaadayo iyaguna ma fiirsan doonaa
iyaduna lama garanayo bal fekerkiina commentiga hoose nagula wadaaga aad mahadsantihiin channelka subscribe saar muuqaalka sii share gare mahadsanidin